saraakiisha cusub ee aqoon-yahanada booliska Soomaaliyeed ayaa xalay munaasabad ay shahaadooyin ku guddoonsiinayeen waxa ay u qabteen taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax, taliyaha xarunta tababarada ciidanka booliska iyo ku xigeenkiisa iyo macallimiinta soo tababartay labadii sano ay tababarka ku jireen. Ayadoo munaasabada ay goob joog ahaayeen generaalada iyo saraakiisha booliska Maxamed Cabdi Mahad iyo Cabdi Fataax Aadan Biid oo kamid ah saraakiisha aqoon-yahanada booliska ayaa waxa ay sheegeen sababaha ay booliska ugu biireen ay tahay in jiilka ka dambeeya ay ku noolaadaan nolol wanaagsan ayna diyaar u yihiin inay difaacaan wadanka. waxaan ku soo barbaaray burbur, waxaan ku wax bartay burbur, waxaan doortay markaas si ay u dareemeen dhibka aan soo dareemay aniga si soo u dareemay jiilka iga dambeeyo inaan noqdo sarkaal ciidan ah u shaqeeyo dalkiisa dareensiyo kan iga dambeeyo inuusan dareemin markaas dhibka aan soo dareemay. xaqiiqdii ma aha markaas himiladaas fulinteeda mid maalin ama laba maalin ku hirgelayso, waa mid u baahan in loo gabar adeego dhibaatooyin badan ka hor imaanayna markaas u ahaatid mid wajaho oo u dhabar adeego. heerkaan marayno maanan gaarsiin lahayn haddaysan ayaka aysan joogi lahayn. dhiigga cusub waxaa laga rabaa saraakiishii hore in lala shaqeeyo, madaxdeena in lala shaqeeyo, in annaka aqoonta iyo waayo aragnimada nagu jirta inaan annaku ku faa'iideyno oo soo jeedino annakiiyo taladooda waanadooda waayo aragnimadooda aan ka faa'iideysanayno. taliyaha xarunta tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Generaal Kaahiye Cabdirashiid Aadan Xirsi ayaa saraakiisha ku bogaadiyay inay aqoontooda kordhiyaan sharciga booliskana ay ku dadaalaan. ninka booliska aqoon kasta ha gaaro marna ma qalin jibinayo. waa ninka laga doonayo sharciga soo baxayo, dastuurka soo baxayo, wareegtada soo baxayso waa inuu yaqaanaa oo wax aqriyaa. isbeddelka imaanayo, sharciyada isbeddelayso, haddaada maskaxda aada ku wadan oo aada la socon wax kasto taasna waxaa weeye waa aqoontaada marna ma qalin jibinaysid intaad noosha oo ciidanka booliska ku jirtid ku maskaxdaada geli. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa kula dardaarmay saraakiisha inay cadaaladda ku dhaqmaan isagoona dhalinta wax baratay ee dhameeyay jaamacadaha ee aan shaqooyinka hayn inay ku soo biiraan booliska Soomaaliya. waxaan kula dardaarmaa wanaagga iyo cibaadada. shaqada booliska dhamaanteed waa cibaadadaas ka faa'iideysta dhamaanteed ku ka faa'iideysta Ilaahay naga dhigo. waxaan Ilaahay idinka baryaynaa xilka aad u dhaarateen oo meesha ammaanada ku dhaarateen Ilaahay idin la qaado. waxaan idin leenahay soo dhawaada. waxaan leeyahay dhalinyarada kuwaan la midka ah oo jaamacadaha ka baxday oo aan shaqada hadda haynin oo ku taamaa inay nabadgelyo helaan, oo ku taamaa inay dhaqaale helaan, oo ku taamaa inay waddankan wax ka noqdaan. waxaan leeyahay inta aad iska joogto cilmigaadii iyo dhalinyaradaada meel la joogtid cimrigaadina waa socdaa. nabadgelyo darradina haddaada dabkashada wax ka daminin ma damaayo. waxaan leeyahay risqa ilaaha bixiyo, aqoontii aad leedihiin, dhaqaalaha waa imaanaa, amniga dalkan ka qayb qaata. ku daysada dhalinyarada iyo lamidka oo maanta la dhaariyey wiigi dhaweyd la dhaariyey loo dhaariyey in noqdaan ciidanka booliska mas'uuliyiinta ka qayb qaataan. ku daysada ku soo biiran lahayd dhalinyarada lamidka ah. saraakiishan oo tiradoodu ay dhan tahay 199 sarkaal ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ee ku biira booliska Soomaaliya, ayadoona saraakiishan dhawaan uu darajooyinka u xiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana laga sugayaa inay hantiyaan amniga dalka. Raxmi Yuusuf Jimcaale, warbaahinta qaranka, Muqdisho.